guud ahaan balkan waxaan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed maadaama aan shacabka Soomaaliyeed wax dooranayno waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha baarlamaanka ee la matali doona in ay nagu matalaan qulubteena waxa ku jira oo ay sii qaataan hadda u sii hormarinayna waxa in ay dalkan haddii laga rabo hore inuu u socdo waa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib loo soo doorta haddii la doonayo in dalku dib u laabto sida 4 sano hadda aan soo dhaafno kale hadda waji cusub iyo waxa raadi doonteen iyo lacag waxaan idin leeyahay waa in aad markaan ka fakartaan mustaqbalka Soomaaliya dawladnimada Soomaaliya waxay noqotay mid dhagala si dawladnimada Soomaaliya ay u noqoto mid dhagale oo indha leh oo araggeedu uu dheer yahay oo adduunka oo dhan wada aragta si u noqoto waa in dib loogu celiyaa madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud oo shacabka Soomaaliyeed jecel yihiin waxaan ognahay haddii baadi ka lunto ee raadkeeda ay ku joogto baadidaas raadkeeda haddii uu ka lumo dib loo laabtaa raadkii bartii ugu dambeysay raad ku aragtaa laga soo raaca si ay ugu tagto halkii raadku uu aaday waxaan leeyahay dawladnimada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeeyay dawladnimada Soomaaliya ee wanaagsan ee la wada leeyahay ee 10 jirka caruurka ah oo madaxweynaha inta su'aal weydiiyo looga jawaabayo oo qof kasta muwaadin Soomaaliyeed uu dareemayo in uu dawladda wax ku leeyahay xasan sheekh maxamuud tiisa ayaa ugu dambeysay waxaan leeyahay haddii Soomaaliya la jecel yahay in ay horumar gaarto horumarka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ka dhex muuqdaa dada waxay dhigi doonaan ninka xasan sheekh maxamuud ka soo tuuray wax la ii soo diray ma jirta aniga xasan sheekh maxamuud isma naqaano TV-gaas ayaan ka daawadaa in uu waxaan ogahay inuu yahay mas'uul Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo ay u hayaan jecel yihiin sida daraadeed anu waxaan ka turjumayaa shacabka Soomaaliyeed afkaarta ku jirta iyo qalbigooda iyo maskaxdooda waxa ka guuxay waxaan leeyahay mas'uulka mudan maantay 4 sano ee soo socota inuu madaxweyne noqdo waa madaxweyne hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud waxaan soo jeedinayaa mas'uuliyiinta la doono u soo jeedinayaa in aysan ku fakirin in isbedel dambe raadiya isbedel waa midka meesha maanta aan la dhigay waa midka maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne nooga dhigay oo aan ognahay dawladnimadii Soomaaliya inuu qol inta isku xiray oo TV-gaas ka daawado waxa ka dhacaya Soomaaliya haddaba waxaan leeyahay si nalkii iyo iftiinkii geeska Afrika ka daarmay mar kale adduunyadu u aragto oo 4 sano la soo dhaafay daynsanaa waa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud la cimaamada madaxweynaha cusubna laga dhiga salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh